14 May sanadkii 1948 dunidu waxay markhaati ka noqotay dhacdo bedeshay taariikhda Bariga Dhexe. Hal maalin gudaheeda waxaa lagu dhawaaqay dowlad cusub oo la yiraahdo Israa'iil. Saacado yar gudahoodana dagaal baaxad weyn leh ayaa qarxay. Laakiin sidee ayuu dagaalkaasi ku bilaabmay? Maxaa sababay in malaayiin qof ay qaxaan, dhulal badanna gacanta lagu dhigo? Sidee ayay dagaaladii xigay u qaabeeyeen khilaafyada maanta dunida ugu murunka badan? Qisadani maahan oo keliya laba shacab, waa sheekada dagaalo, qax, heshiisyo nabadeed iyo jiilal ku soo koray xaalad colaadeed. Muuqaalkani waxaynu ku eegaynaa dagaaladii ugu waaweynaa ee dhex maray Israa'iil, Falastiin iyo dalalkii Carabta, anagoo raacayna dhacdooyinka siday u kala horeeyeen. Waa qaybteennii saddexaad taxanaheennii aynu ku eegaynay taariikhda Yahuuda. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. 14 May sanadkii 1948 hogaamiyihii Yahuuda David Ben-Gurion wuxuu ku dhawaaqay aasaaska dowladda Israa'iil. Ku dhawaaqistaasi waxay ahayd mid taariikhi ah, balse sidoo kale waxay ahayd bilowga dagaal cusub. Maalintii xigtay, ciidamada Masar, Urdun, Suuriya, Ciraaq iyo Lubnaan waxay galeen dagaal ka dhan ah dowladda cusub. Dagaalku wuxuu ka dhacay meelo badan oo gobolka ah. Labada dhinacba waxay doonayeen inay xaqiijiyaan himilooyinkooda siyaasadeed iyo mid dhuleedba. Bilihii xigay, dagaalku wuxuu noqday mid sii xoogaysta. Inkastoo Israa'iil ahayd dowlad cusub, haddana waxay ku guulaysatay inay abaabusho ciidamo awood u leh difaac iyo weerar sameynba. Markii dagaalka uu dhammaaday sanadkii 1949, Israa'iil waxay gacanta ku haysay dhul ka ballaaran kii loogu qorsheeyay qorshihii kala qaybsanaanta. Daanta galbeed waxaa maamulayay Urdun, halka marinka Gaza uu gacanta ku hayay dalka Masar. Laakiin natiijada ugu weyn ee dagaalkaasi waxay ahayd qaxii ballaarna ee Falastiiniyiinta. Taasina waxay horseeday qaybta xigta ee muuqaalkeena aynu ku socono. Intii uu socday dagaalkii 1948, boqolaal kun oo Falastiiniyiin ah ayaa ka tagay magaalooyinkoodii iyo tuulooyinkoodii. Qoysas badan ayaa ku qaxay dagaalka, halka kuwo kalena ay u guureen qaybaha kale ee Falastiin. Sababaha qaxaasi ilaa maanta waxay ka mid yihiin mowduucyada ugu dooda badan taariikhda gobolka. Qaar ka mid ah taariikhyahanadu waxay ku doodaan in dad badan ay ka carareen dagaalka iyo cabsi ka dhalatay colaadda. Kuwo kalena waxay sheegeen in meelo badan ay ka jireen barakicin iyo ka saarid xoog lagu fulinayay. Wax kasta oo ay sababuhu ahaayeen, natiijadu waxay noqotay mid weyn. Boqolaal kun oo qof ayaa noqday qaxooti. Xeryo qaxooti ayaa laga dhisay Urdun, Lubnaan, Suuriya, Gaza iyo Daanta Galbeed. Sanadihii xigay, qaxootigaasi waxay noqdeen malaayiin qof oo ka kooban jiilal isdaba jooga ah. Su'aasha ah in qaxootigu ku laaban karaan guryahoodii ama la siin karo magdhow waxay noqotay mid ka mid ah arrimaha ugu adag ee khilaafka. Inta badan wadahadaladii nabadeed ee dambe, qodobkani ayaa ahaa mid si weyn loogu murunsanaa. Iyadoo dhacdooyinka dagaalkii 1948 aysan weli bogsan, gobolka wuxuu u sii dhaqaaqay dagaal kale oo ka sii weyn. Lixdamaadkii, xiisadda Bariga Dhexe waxay gaartay heer sare. Ciidamo ayaa la geeyay xuduudaha. Hanjabaadaha dagaalka iyo cabsi amni ayaa sii xoogaysatay. Bishii Juun sanadkii 1967, Israa'iil waxay qaaday weerar degdeg ah oo cirka ah. Saacado gudahooda, qayb weyn oo ka mid ah ciidamada cirka ee Masar ayaa la burburiyay. Dagaalku wuxuu si degdeg ah ugu faafay Masar, Suuriya iyo Urdun. Muddo 6 maalmood gudahooda ah, natiijadu waxay noqotay mid dunida ka yaabisay. Israa'iil waxay qabsatay jasiiradda Sinai, marinka Gaza, Daanta Galbeed, bariga Qudus iyo buuraha Golan. Guushaasi waxay si weyn u bedeshay qariirada gobolka. Malaayiin Falastiiniyiin ah ayaa hadda ku nool dhulka ay Israa'iil maamusho. Qudus oo ah magaalo leh muhiimad diimeed iyo mid taariikheedba ayaa noqotay xarunta khilaafka cusub. Dagaalkii 6dii maalmood wuxuu noqday mid ka mid ah dhacdooyinka ugu saameynta badan taariikhda casriga ah ee Bariga Dhexe. Laakiin guusha Israa'iil waxay sidoo kale abuurtay rabitaan xooggan oo ay dalalka Carabtu ku doonayeen inay dib ugu soo ceshtaan dhulkoodii. Fursaddaas waxay timid 6 sano kadib, 6 Oktoobar sanadkii 1973, iyadoo Israa'iil ay ku jirtay maalinta ciida
Yom Kippur, ciidamada Masar iyo Suuriya waxay bilaabeen weerar lama filaan ah. Masar waxay ka gudubtay kanaalka Suez, Suuriya waxay weerartay buuraha Golan. Bilowgii dagaalka, ciidamada Carabta waxay gaareen guulo muhiim ah. Dad badan oo dunida ku nool ayaa la yaabay sida degdega ah ee weeraradu u socdaan, laakiin maalmo gudahood Israa'iil waxay bilowday inay dib isku abaabusho. Dagaallo cusub ayaa dhacay. Ugu dambeyntii, Israa'iil waxay dib u heshay qayb ka mid ah goobihii ay lumisay, waxayna gaartay meel u dhow magaalooyinka muhiimka ah ee cadowgeeda. Inkasta oo dagaalku ku dhammaaday xabad joojin, haddana waxay beddeshay xisaabta siyaasadeed ee gobolka. Masar waxay muujisay inay awood u leedahay inay dib ula dagaalanto Israa'iil. Israa'iilna waxay gaartay in guulihii 1967 aysan ka dhignayn amni joogto ah. Dagaalkan kadib ayaa si tartiib tartiib ah loo bilaabay dagaallo horseeday heshiisyo nabadeed oo taariikhi ah, laakiin khilaafku weli ma dhammaanin. Dhammaadkii 70-meeyadii waxaa la saxiixay heshiisyo nabadeed oo dhex maray Masar iyo Israa'iil, waxayna ahayd markii ugu horeysay ee dal Carbeed heshiis la saxiixda Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, arrinta Falastiiniyiinta weli xal looma helin. Sanadkii 1987 waxaa qarxay kacdoonkii ugu horeeyay ee intifaadada. Dhalinyaro Falastiiniyiin ah ayaa bilaabay mudaharaadyo iyo iska horimaadyo ka dhan ah maamulkii Israa'iil. Sawirada dhacdooyinkaasi ayaa dunida dhan ku faafay. Sanadkii 2000, intifaadadii labaad ayaa bilaabatay. Mar kale, rabshado iyo dagaallo ayaa gobolka ku baahay. Dhanka kale, marinka Gaza wuxuu noqday goob ay colaado soo noqnoqda ka dhacaan. Kooxo hubeysan iyo ciidamo Israa'iil ayaa galay iska horimaadyo badan oo sababay khasaaro bani'aadamnimo leh. Sanado badan waxaa la qabtay wadahadallo nabadeed. Waxaa jiray heshiisyo, shirar iyo dadaallo caalami ah, laakiin arrimo ay ka mid yihiin xuduudaha Qudus, qaxootiga Falastiin, amniga iyo mustaqbalka dhulka lagu muransan yahay ayaa weli xal waara laga gaari waayay. Sidaas daraaddeed, khilaafku wuxuu sii ahaanayaa mid ka mid ah muranada ugu muddada dheer dunida casriga ah. Marka dib loo eego dagaalkii 1948, 1967 iyo 1973 iyo sidoo kaleeto qaxii Falastiiniyiinta, intifaadooyinkii iyo colaadihii xigay, waxaa muuqata in dhinac kasta ay raad ku reebtay. Tan ka dambeysay, dhulal ayaa gacanta lagu dhigay, malaayiin qof ayaa qaxooti noqday, heshiisyo nabadeed ayaa la saxiixay, laakiin su'aalo badan ayaa weli jawaab loo helin. Khilaafka Israa'iil iyo Falastiin ee maanta jira lama fahmi karo haddii aan la fahmin dagaaladii iyo dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee aynu muuqaalkeena ku soo qaadanay. Dagaaladani waxay qaabeeyeen siyaasadda bulshada iyo amniga bariga dhexe muddo badan oo 10 sano ah, laakiin sheekadu halkaas kuma dhammaanayso. Sababtoo ah dagaaladan kadib, Israa'iil waxay si tartiib tartiib ah isugu beddeshay awood militari, dhaqaale iyo mid tiknoolajiyadeed oo saameyn weyn ku leh gobolka. Qaybta xigta ee taxanaheena waxaan ku eegi doonaa Israa'iil oo noqotay quwadda gobolka. Sidee ayay dowlad yar oo dagaallo badan soo martay u noqotay mid ka mid ah quwadaha ugu saameynta badan bariga dhexe? Taasi waa mowduuca aynu ku soo qaadan doonaa taxanaheena qaybta xigta. Ha moogaanin daawade, mahadsanidin.